السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal waxaan rajeynayaa barnaamijka kan isaga ah inaan ka dhigo mid dhammaystir ku saabsan barnaamijyadii hore aan kaga faalloonnay arrimaha iyo sooyaalka taagan ee xildhibaan ilhaan cumar. arrinka ugu weyn oy dadka ku kacsan maanta xildhibaan ilhaan cumar cuskanayaan wuxuu yahay iyagoo u arka inaanay ahayn macnihii qof daacad u ah ama loyalty u ah danaha maraykanka marka la yimaado dhanka danaha, balse ay macnihii daacad u tahay, loyalty u tahay danaha Soomaaliyeed, oo ay halkaas iyada ah ku tilmaameen oraah ah inay tiri danaha macnihii soomaalinimo ama Soomaaliyeed iyo islaam marka ugu horeysa baa macnihii priority-geedu yahay iyo mudnaanteeda koowaad, marka ugu dambeysana danaha maraykanka oo macnihii danaha soomaalinimo iyo danaha islaamka ka hormarisay danihii maraykanka. arrinkaasuna uu yahay mid aan waxba ka soo qaad lahayn, aan waxba ka jirin, oo qaabkaas isaga ah macnihii hadalkii ay madashii iyada ahayd ee calaamasaarka Puntland ee ka dhigtay xildhibaan ilhaan cumar aanu ahayn mid goobtaas iyada iyo speechkaas isaga iyo soo jeedintaas iyada ah macnihii qaabkaas isaga ah ay u fasirteen oo wax u mala awaasheen aan u jirin. marka arrinkaas isaga ah laga tallaabsado ama faalo kale la galo, waxaa la oran karaa in xildhibaan ilhaan cumar ay ka duushay baaq dadweyne Amerikaan ah. dadkaas Amerikaanka ah oo ah Soomaali markooda hore intaanayba Amerikaan ahayn, balse degan gaar ahaan state of Minnesota ee cariga maraykanka, isla markaasna ah dad maraykan ah oo ah taageerayaasha xildhibaan ilhaan cumar, isla markaasna mar labaad ah bulshada ay ka soo jeedo ee Soomaaliyeed xildhibaan ilhaan cumar. bulshadaasoo ah bulshada koowaad ee doorata xildhibaan ilhaan cumar, oo run ahaantii ku abtirsata dalkii Soomaaliya, oo had iyo jeer codadkooda siiya xildhibaan ilhaan cumar. saas awgeedna ay xildhibaan ilhaan cumar ku khasban tahay inay tixgeliso rabitaankooda oo ilaaliso danahooda, noocay noqotoba ha noqoto mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid arrimo bulsho. arrinkaas isagana ay kagala mid tahay xildhibaano badan oo maraykan ah ama qaarkoodba ah, guud ahaanna xildhibaanada Congaresska ku jira ee maraykanka ah kala mid tahay, taasoo ay dhammaan had iyo jeer tixgeliyaan rabitaanka dadyowga doorta oo codka siiya, hadday yihiin kuwa maraykan ka soo jeeda oo macnihii ku dhashay, iyo hadday yihiin kuwa immigration ah oo macnihii ka soo haajiray dalal kale oo ay ka yimaadeen. dadyowgaas iyagaa tusaale waxaa ka mid a dadka Laoska ah iyo dadyowga Vietnamese-ka ah oo ka soo jeeda Asia, oo macnihii dagaallo sokeeye ee hore xilliyadii gaar ahaan toddobaatameyadii ay kalifeen oo keeneen inay u soo haajiraan dalka maraykanka, iyo dadyow kaleba. saas marka loo fiirsado muuqaalkaas isaga ah, waxaa la oran karaa
qof walba oo xildhibaan ah maraykana had iyo jeer wuxuu tixgeliyaa danaha macnihii dadka qaacidada u ah ee doorta dadyowgaas iyaga aan tilmaamay oo vietnamiiska iyo laoska waxaa la mid a dadyowga ka soo jeeda dalka Cuba oo aan ka fogeen maraykanka oo xukun cadaadis oo dictatora oo xilligii gaar ahaan Fidel Castro kasoo haajiray dalka Cuba guud ahaan dadkaas waxay ka siman yihiin ama xildhibaanadaas iyaga waxay ka siman yihiin inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada soo dooratay isla mar ahaantaasna ay dan ugu jirtaa taasoo ay dadkaas iyaga ee tilmaaman yihiin dadyowga codadka siyaasadeed ugu dambeynna ay xildhibaanadaas iyaga ay ku gaadhaan guusha siyaasadeed dhan kale marka loo fiirsado waxaa la oran karaa inay xildhibaan Ilhaan Cumar markay tixgeliso macnihii rabitaanka bulshada taageerta ama doorata arrinkaas isagaa laftiisa siyaasad ahaan dhan kastaba uu macnihii dalka maraykanka uu dan ugu jirto tusaale Ethiopia iyo Soomaaliya oo isku dhaca oo Ethiopia macnihii ku xadgudubtaa soodintii Soomaaliyeed hadday noqoto mid dhuleed iyo mid badeedba taas waxay keenaysaa oo koosgarayn doonta dagaal weyn oo baahsan oo dhex mara Soomaalida iyo Xabashida dagaalkaas isagana wuxuu keeni karaa dadyow badan oon la malayn karin tiradooda oo Soomaaliyeed oo dalkoodii ka qaxa goobahay dadkaas u qaxayaan waxa ka mid ah waa dalka Maraykanka waa dalka ay xildhibaan Ilhaan Cumar matasho Congress-kiisa dhibaatadaas iyada ee insaaniyadeed ee human being ugu dambeyntii markay dhacdo waa mid ku soo noqonaysa dhan kale marka laga eego dalka Maraykanka iyadoo dadyowgii ay macnihii xildhibaanadu u ahayd matala ee codsan doonaan ama culays uu ku dhici doono dhaqaale iyo bulshaba si ay macnihii ugu hagarbixi lahaayeen dadyowgoodaas dhibaatadu ku dhacday iyo guud ahaan dadyowgooda Soomaaliyeed ee dalkoodii ka soo haajira ama ka soo qaxa saas awgeed culayskaas isaga gunaanadkii ugu dambeyn waa mid soo food saari doona haddeeba dhacdo ilaahay naguma keenay dalka Maraykanka laftiisii dhankaasna marka laga arko la oran karo in xildhibaan Ilhaan Cumar ay ugu daraynayso markay dhegaysato oo u dhega nugulaato oo u dhega furnaato macnihii dadka taageera ee halkaas iyada dan ugu jirto dowladdii Maraykanka lafteedii oo arrinkaas tixgelinta rabitaankoodii uu qayb ka yahay ka noqonayo macnihii hirgelintii nabadda hadday noqoto geeskii Afrika iyo hadday noqotoba dalka Maraykanka gudihiisba ee dowladda Maraykan ku khasban tahay haddii isku dhacaas isaga labadaa dal ee tilmaaman dhex maro in ay soo qaado caawiso kaalmayso boqolaal kun oo Soomaaliya oo waxyeelo ka soo gaadho xadgudubkaas iyo duulaankaas Ethiopia saas marka loo fiirsado oo dhankaas laga fiirsado oo wax laga qiimeeyo waxaa la oran karaa in xildhibaan Ilhaan Cumar
ay tixgelinaysay ilaalinaysay danaha dowladda maraykanka iyo shacabka maraykanka oo soomaali badan oo state of Minnesota iyo stateyo kale oo kala duwan oo la oran karo dhammaan ama guud ahaan stateyada maraykanka ay tahay bulshada soomaaliyeed dadyo ku sugan oo saameynta soomaaliya ka dhacda ee saameyn noqon lahayd maraykanka laftiisa saameysa aragtida dheer ee wax lagu cabiri karaa daawada dhegayste waa muuqaalkaas isaga ah ee dhaafsiisan aragtida gaaban ee xildhibaanada qaarkood ee ku kacsan ee maraykanka soo jeeda Ilhaan Cumar ku kacsan ee wax ku qiimeynayaan ayna tahay aragtida Ilhaan Cumar mid qoto dheer oo aragtidoodaas iyo si wax u qiimeynayaan aad u dhaafsiisan daawada dhegayste waa anigoo ah Khalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmi doono barnaamij kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu